بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أهابون أحبابي سو دواada waa markan iyo barnaamijkeennii ogaalka dunida oo aynu imika ku eegi doono dadka adduunka ugu da'da weyn maamo ka mid ah oo u dhalatay dalkaasi Faransiiska oo imika dhimatay 25 Abriil sanadkii 2022 iyo dhanka kale waxaynu ku soo qaadan doonaa muuqaalka maamada iyaduna ugu weyn imika adduunka loo aqoonsaday oo lagu magacaabo Julie Randon oo imika jirta 118 jir ah oo ah sooro Faransiis ah oo dalka Faransiiska u dhalatay ku soo dhawaada barnaamijka intaan ku soo gudbin hadii ay tahay markii ugu horreysay soo qaato barnaamijkan ogaalka dhacdooyinka fadlan channelka subscribe iyo gambaleelka taabo oo ka mid noqdo dadka halkan ku sugan aad baad u mahadsantahay dad nala fahantiin imkana ku soo dhawaada qisada sheekada maamadan ugu da'da weyn adduunka maamo lagu magacaabo Kenny Tanaka oo haweeney u dhalatay dalka Japan oo loo aqoonsaday qofka ugu da'da weyn adduunka wayna geeriyootay imika 25 bishii Abriil sanadkii 2022 sanadkii imika aynu soo macasalaameynay Tananga waxay dhalatay sanadii 1903 isla sanadka nin lagu magacaabo George Orwell oo isla xilliga isaguna u dhashay Japan ayaa waxa la sheegay inay markaa ay soo ifbaxday awood caalami ah oo uu yeeshay dalkaasi Japan sida ay sheegaan waxayna guursatay maamadaasi qarni ka hor waxa ayna u dhalatay 4 caruur ah sanadkii xigay ee dambena waxa ay ku qaadatay guri lagu daryeelo oo ku yaala dalkaasi Japan halkaas oo ay la sheegay inay ku raaxaysan jirtay ciyaaraha looxaanta iyo shukulaatooyinka kala duwan oo halkaas ay ku cuni jirtay geerideeda waxa loo aqoonsaday qofka adduunka ugu da'da weyn hadda laakiin imika qofka adduunka ugu da'da weyn waxa ah Julie Randon oo jirta 118 jir ah oo sooro Faransiis ah sidoo kale isla sanadka ay dhalatay maamadaasi nin lagu magacaabi jiray Theodore Sofitel wuxuu ahaa madaxweynihii dalkaasi Mareykanka dhanka kale taariikh badan ayay maamadan soo martay waxay kaloo la kulantay Edward nin la yiraahdo oo ahaa boqorkii 7aad ee dalka Ingiriiska iyada iyo walaalaheed waxa lagu magacaabi jiray Wright Brothers waxayna qaateen duulimaadkoodii ugu horeeyay iyada oo la xakameeyay diyaaradoodana markii hore la dhigay meel lagu magacaabo Torre oo France ah ayaa la dhigay diyaaradda markii ugu horeysay sanadkii xigayna Ruushka wuxuu galay dagaal aad u baan oo ka dhana dalka Japan iyada oo la kulmay guul darro weyn maadaama ay Japan yihiin dad u dhabar adeego oo iska dhiciya adigooda ayay sanadkii xigayna sidaas ayuu ku dhacay ninkeeda oo ayna is arkin maamadan maalintii meherkeeda ka hor wuxuu isna ka qayb galay dagaalkii labaad ee adduunka gaar ahaan Japan Sino sanadii 1937 isla sanadka wiilkeeda ayaa isagana ka dagaalamayay dagaalkii labaad ee adduunka wuxuuna maxbuus ahaan u qabtay wiilkeeda midowgii Soviet Union lagu magacaabi jiray Tanaka waxay ahayd tii 7aad ee ay la jirto 9 kale ay walaalo yihiin waxayna guursatay iyada 19 jir ah waxayna lahayd ganacsiyo badan oo ay ku jiraan kuwa dukaamada boostiga la soo dhigo hadii ay daawada ay tahay markii ugu horeysay oo soo booqato channelkan fadlan subscribe iyo gambaleelka taabo hadii aad jeceshahay qisooyin kalena fadlan channelka subscribe iyo nala joog